iyadoo maanta ay ka bilowdeen guud ahaanba deegaanada Jubbaland imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2016 ilaa 2017 ayaa waxaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah iskoolada ku yaala magaalada Kismaayo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland mas'uuliyiintan wasaaradda waxbarashada ayaa isugu jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo madaxa imtixaanaadka ee magaalada Kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland Axmed Cusmaan Sayax oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay kormeerka ay maanta ku tageen iskoolada waxbarashada ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo taariikhda 6 bisha shanaad 2017 waxaa bilowday imtixaanaadkii sanadka dowlad goboleedka Jubbaland ee sameynaya iskuulada waxa imtixaanka maanta toos ugu bilowday dugsiga hoose dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ilaa iyo galaaska form 3 masana galaaska 11 imtixaanaadka si wanaagsan ay u socdeen iskuulada aan booqan waxa kamid ah Jubba Faanoole iyo Axmed bin Hanbal dhammaan ardayda imtixaanaadka galaasay ku sameeyeen way wanaagsanayeen si fiican ayaa loo qaadayay ilaaliyaashii imtixaanaadka joogay si wanaagsan ay u sameeyeen maamuladii waxay siiyeen wixii tasiilaad ahaa oo loo baahnaa imtixaanaadka si habsama ah inuu dhaco dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Macallin Maxamed Ibrahim Maxamuud oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa wuxuu dignin u diray dadka degan goobaha gaarka u ah waxbarashada sida iskooladii hore oo hadda ay degan yihiin dad rayida waxaan rabaa duco saddex inaan soo jeediyo wasaaradda waxay gaadhay xilliga waxbarashada iyo imtixaanaadka waxaa bilowday dugsida hoose imtixaanaadkoodii baa bilowday una soconaya insha Allah taala inta loogu talagalay waxaan kale oo rabaa inaan ogeysiiyo ummadda Soomaaliyeed iskuulada dawladda shacabka iska leh iskuulada hore Kismaayo ku yaalay iskuulla waxay ahayn bad wanaagsan leh firaaqo leh meel ardaydu ku ciyaarta leh meel lagu nafisa leh iskuuladiina waa la wada dhistay dhammaantood waa la dhistay iskuuladii guryaha ku wada dhisan annaga kormeer badan baan sameynay ilaa iyo 4 iyo 5 kormeer baan sameynay oo 7 wasiir ay tii u dambeysay 7 wasiir ay isku mareen waxaa la goostay iskuulada oo dhulkoodii la dhistay in la baneeyo waxaan rabaa inaan u sheego ummadan shacabkan Soomaaliyeed Jubbaland iskuulada dhulkoodii waa la baneynaya hadii Ilaahay cidna lagu xumayn maayo cidna looma jeedo Cabdi Casiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan Kalson TV magaalada Kismaayo